qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga liberaalka ee FRB ayaa ka dhawaajiyay inay ka shaqeynayaan sidii kaalmada ceerta ama kaalmada bulsheed looga jari lahaa dadka qaata ee eheladooda aan ku nooleen dalka Norway wax uga dira. Sivertsen oo hadda ku fadhiya kursiga golaha deegaanka magaalada Stavanger ee xisbigan ayaa sheegay in kaalmada bulsheed ee la siiyo dadka ku nool Norway ee laga diro dalka ay tahay xadgudub taa oo uu ku sheegay inuu ku baaqayo in la joojiyo dadka lacagaha dirayo ee dalka meel ka baxsan u dirayo. Wuxuu intaa ku daray inay og yihiin in kooxahan ay ka mid yihiin Soomaalida oo lacaga badan u diro dalka dibadiisa, halka qaybo badan oo ka mid ah ay sida uu hadalka u dhigay ay qaataan kaalmada bulsho ama lacagaha ceerta, isagoo intaa raaciyay inaysan sii socon karin in 100 milyan laga diro Norway sanad kasta. Sanadkii 2019 ayay hay'adda tirakoobka dadweynaha Norway ee SSB sheegtay in Soomaalida ku nool Norway ay direen adduun lacageed oo gaaraya 280 milyan oo koronka Norwejiga ah. Hogaamiyaha xisbiga FRB, Siv haweeneyda loo yaqaano, ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay inay doonayaan in ay noqdaan wadankii ugu dambeeyay ee damiya ama xira tubada ay lacagta ka burqato. Subaxnimadii saaka oo Khamiis ahayd ayaa shil ay isku dhaceen gaari xamuul ah iyo tareen marayay isgoyska tareemada ee Borgestad ee magaalada Shin ayaa halkaasi ka dhacay. Tareenka ayaa sida la sheegay ku sii jeeday Boris Grun waxa uuna ku dhacay gaarigan xamuulka ah oo isaguna isgoyska ka talaabayay. Sida ay boolisku sheegeen, gaariga ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan halka tareenka aysan waxyeelo soo gaarin, mana jirto ilaa hadda cid wax ku noqotay shilkan. Darawalka gaariga waday ayaa ka booday gaariga inta uusan ku dhicin tareenka, waxaana tareenka saarnaa 2 qof oo shaqaale ah iyo 2 qof oo rakaab ah oo iyaguna la sheegay in aysan waxyeelo soo gaarin. Shilkan ayaa sababay isu socodka gaadiidka kala duwan ee wadadaasi marta oo u dhaxaysa iskuna xirta magaalooyinka Larvik iyo Shin in ay xarinto oo ay hakad gasho. Hay'adda Lanqeyrta Cas ee dalka Norway ayaa ka dhawaajisay inay sii kordhayaan caruurta iyo dhalinyarada ku fekerayso inay isdilaan oo ay nafta islaafiyaan. Qaybta dhalinyarada ee hay'addan ayaa sheegtay in hadda loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo maxalli ah iyo adeegyo heer hoose ah oo arrimahani lagula tacaalayo. Azra Numanovic oo ah madaxa qaybta dhalinyarada ee hay'adda Bisha Cas ee Norway ayaa sheegtay in dadka da'doodu ka yar tahay 18 sano ay ku fikiraan inay nafta isdhaafiyaan ay muujinayso in dalku uu ka jiro xaalad aan la qaadan karin oo bulshada dhexdeeda ah. Adeegga wada sheekaysiga ee Cross on the Neck oo ay hay'addani isticmaasho kuna sheekeeyaan dadka mutadawiciinta ah ee qaybta ka ah ayay sheegeen in caruurta iyo dhalinyarada ay kula sheekaystaan ay 10% kor u kordhay marka loo eego sanadkii hore. Waxayna sheegeen in wadarta guud oo ay la sheekaysteen sanadkii dhammaaday ee 2024 ay ahayd 28,416 dhalinyaro iyo caruur isugu jirto. 4 mowduuc ee ugu waaweyn ee ay dhalintan iyo caruurtan kala sheekaystaan oo ay ku soo hadal qaadaan ayay sheegeen inay ugu horeyso dilka, waxaana ku soo xigo iswaxyeeleynta nafeed, arrimaha ku saabsan jaceylka iyo muuqaalka jir ahaaneed oo aysan qaarkood ku qanacsaneen. Daraasad cusub oo ay sameysay kooxda Boston Consulting Group BCG ayaa muujinayso in dadka Norwejiga ah iyo dowladda Norwayba ay yihiin dadka ugu isticmaalka yar marka loo eego wadamada kale ee Yurub aaladda maskaxda tiknoolajiyadda macmalka ah ee loo yaqaano AI. 24% shaqaalaha Norwejiga ayaa isticmaala maskaxdan macmalka ah ee tiknoolajiyadda ah toddobaad kasta, halka wadamada kale ee Yurub ay isticmaalaan toddobaadkii in ka badan 54%. Farqigan ayaa sidoo kale muujinaya beeqaaminta waqtiga oo isticmaalayaasha Norwejiga ayaa celcelis ahaan beeqaamiyo waqti la eg 2 saac iyo 70 daqiiqo, halka wadamada kale ee Yurub ay iyaguna beeqaamiyaan waqti la eg 5 saac iyo 30 daqiiqo. Alexander Gray oo ah agaasimaha maamulka hay'adda Boston Consulting Group BCG ahna madaxa waqooyiga Yurub ayaa sheegay inuu aad ula yaabay in Norwejigu yihiin dadka ugu isticmaalka yar ee maskaxdan macmalka marka loo eego wadamada waqooyiga Yurub. Halka ay wararka ugu doorka maanta idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdullaahi Shiine.